السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan arday ku soo dhawaada maadada juqraafiga galaaska afraad ee dugsiga sare gaar ahaan chapterka saddexaad ama cutubka saddexaad oo inoo noqon doona agriculture. COVID-19 waxa uu ku faafaa marka qofka cudurka qaba uu hadlo ama qufaco ama hindhiso oo dhibcaha ka soo baxa neef mareenkiisa ay gaaraan qof kale. waxa kale oo ku gudbi karaa marka dadku taabtaan gacmahooda meel kale oo jeermi saaran yahay kadibna gacmahooda oo xambaarsan ay ku taabtaan indhaha iyo afkooda. waxaan qaadan doonaa hadduu rabbi idmo casharka ama lessonka koowaad oo inoo noqon doona maanta concept of agriculture. chapter contents haddaba maxaa uu ka kooban yahay cutubiyada waxa loo yaqaan casharada kala duwan ee uu inuu ka koobnaan doono chapterkeena agriculture. Lesson 1 3.1 concept of agriculture, 3.2 types of agriculture, 3.3 factors influencing commercial cultivation and location of crops, 3.4 animal farming, 3.5 types of crop cultivation, 3.6 cereals gaar ahaan maize and sorghum. haddaba maxaa objective oo aynu dhamaadka chapterkan laga doonayo arday walba inuu awoodo kow inuu qeexi karo agriculture, number 2 inuu identify gareyn karo the types of agriculture, sidoo kale arday walba inuu baari karo qodobada saameynta ku leh commercial crops, sidoo kale arday walba waxa laga doonayaa inuu analyze gareyn karo the term of animal farm, sidoo kale arday walba waxa laga doonayaa dhamaadka casharkan inuu awood u leeyahay inuu discuss gareyn karo maize and sorghum. Good. Lesson 1 concept of agriculture. Lesson 1 casharkeena koowaad aynu maanta qaadanayno waxa uu ku saabsan yahay conceptiga agriculture-ka. agriculture marka aynu ka hadlayno arday inta badan waa beerasho. beer marka laga hadlayana macnaheedu ma aha dalag la beero oo kaliya. guud ahaan waa cilmi, is the science, waa cilmi or practice of farming including cultivation of soil for the growing of crops and rearing of animals. marka aynu ka hadlayno agriculture-ka waa cilmi la xiriira kow dalag beerista, cultivation of crops and iyo rearing of animal iyo dhaqashada xoolaha, dhaqashada xayawaanaadka. ujeedooyinka loo isticmaali karaa laba ujeedo oo kaliya ayaa ay noqon karaa kow laba mid ayaa ay noqon karaa inaad dalag u beerato ama aad xoolo u dhaqato ama aad xayawaan u dhaqato. ujeedada koowaadi waa subsistence, inaad quudato, for subsistence inaad quudato. midda labaadna waa maxay? commercial purpose, inaad ka ganacsato. commercial purpose, ujeedo ganacsi. therefore agriculture short form qeexidiisu waxa waaye waa cilmi kaasoo ah in la practice gareeyo the cultivation of crops, in dalag la beerto. sidoo kalena cilmigu wuxuu la xiriiraa rearing of animal, dhaqashada waxa loo yaqaan xayawaanaadka. laba ujeedo ayayna noqon kartaa in ama dalag loo beero ama xayawaan loo dhaqdo. ujeedada koowaad waa subsistence, in la quuto, iyo commercial purpose, in laga ganacsado. ereyga agriculture comes from asal ahaan wuxuu ka yimi Latin word, waa erey Latinia oo kala ah ager macnaheedu yahay the soil iyo culture oo macnaheedu yahay cultivation. waa labada erey isu tagay oo kala agar waxa loo yaqaano iyo waxa loo yaqaano culture. agar macnaheedu waa maxay? waa ciid. culture macnaheedu waxa waaye cultivation, waa in dalag lagu beero ciidii. asal ahaan sidaas ayaa u ka yimi. good. markaaynu farming-ka ka hadlayno guud ahaan 80% the total population of Africa, bulshada Africa waxay si dadban oo ugu tiirsan yihiin waxa loo yaqaano agriculture ayaa ay ku tiirsan yihiin. good. haddaba types of agriculture,
types of agriculture qaybaha agriculture-ka markaaynu arday agriculture-ka ka hadlayno guud ahaan waxaynu u kala ableynaa ama aynu u kala qaybinaa saddex qaybood midda koowaad waxa loo yaqaanaa arable farming midda koowaad waxaynu ugu yeernaa arable farming magac kale oo aynu naqaanaa waxa la yiraahdaa crop farming oo macnaheedu waxa waaye waa in waxa loo yaqaano miro la beero ama dalag la beero midda labaad waxa loo yaqaanaa animal farming waa dhaqashada xayawaanaadka midda saddexaad waxa loo yaqaanaa mixed farming oo waa beer labadiiba xoolihiina lagu xayawaanaadkiina lagu dhaqanayo sidoo kalena dalag lagu beerayo waa mixed waa isku jir saddexdaas guud ahaan loo qaybiyaa arable farming magac kale oo aynu naqaano waa crop farming waa in miro la beero ama dalag animal farming waa in xayawaan la dhaqdo sidoo kalena mixed farming oo ah labadii arabalkii iyo animalkii in hal meel lagu wada dhaqdo good iyagii baa si kala baxaya tusaale ahaan arable farming labaynu u qaybinaynaa waa kuwii ahaa subsistence iyo commercial waa beer aad ugu talagashay adiga iyo familkaaga iyo inta ehelkaaga ah ama waa beer aad ugu talagashay wixii ka soo go'a oo dalaga inaad ka ganacsato iyagii baa si kala baxaya tusaale ahaan subsistence farming oo kale waxaan u kala qaybinaynaa ilaa saddex qaybood oo kala ah shifting cultivation permanent cultivation rotational cultivation sidoo kale commercial farming baan laba u kala qaybinaynaa waa in la beero extensive farming beer meel weyn iyo sidoo kale waxa loo yaqaan intensive farming guud ahaan tusaale ahaan animal farming ruuxeed way si kala baxaysaa oo tusaale ahaan waxa jira pastoral farming waxa jira dairy farming waxa jira sidoo kalena beef farming good marka guud ahaan marka qaybaha agriculture-ku waa saddex arable farming magac kale oo aynu u naqaano arday waa maxay magac kale oo aynu arable farming u naqaano waa crop farming waa in miro la beero qaybta labaad ee agriculture-ku sidoo kalena waa maxay animal farming waa dhaqashada xayawaanaadka qaybta saddexaadna waa mixed farming oo waa maxay waa labadii dalagii ama mirihii waa beer ay ka soo baxaan dalagii sidoo kalena lagu dhaqdo xayawaanaadka waxaan la yiraahdaa mixed farming good haddaba maxaa arable farming la yiraahdaa arable farming waa in la beero waa beerista waa the cultivation and the management of crops sidoo kalena la manage gareeyo dalaga which kuwaasoo inta badan waxa loo yaqaano ujeedooyinka loo isticmaalaya ay noqon karo laba hab oo kala ah subsistence iyo commercial waa in dalag la beero lana maamulo habkaasina laba ujeedo waxa weey loo kala qaybin karaa waa subsistence farming qolo loogu talagalay waxa loo yaqaano beerta in la quuto iyo mid loogu talagalay in laga ganacsado good sawirkan ardayo wuxuu ku tusinayaa arable farming waa meel piece of land gobol dhulka kamida kaasoo dalag lagu beeray ama miro lagu beeray haddaba qayb nooca labaad ee beerashada waxa la yiraahdaa animal farming macnaheedu waxa waaye keeping waa in la ilaaliyo and rearing lana dhaqdo domesticated animals of farm in beer domesticated animal xayawaanaad lagu dhaqdo waxa jira waxa loo yaqaano pastoral farming oo ah dhaqashada xayawaanaadka sida tusaale ahaan waxa loo yaqaano camels geeli cows waxa waaye dibigii lo'dii waxa loo yaqaano goats waxa loo yaqaano riihii sheep lixihii rabbit bakaylihii chicken digaagii iyo qaar kale oo badan waxa jira sidoo kalena waxa la yiraahdo dairy farming oo ah nooc kamida waxa loo yaqaano animal farming-ka kaasoo ah in waxa loo yaqaano milk bread wax soo saarka caanaha tusaale ahaan inaga hadda dalkan aad waxa ugu badan waxa loo yaqaano barqamaalka geela loo yaqaano wuxuu soo hosgelaya dairy farming waxa jira qayb saddexaad oo animal farming kamid oo loo yaqaano beef farming oo ah in la dhaqdo xayawaanaadka gaar ahaan katalka lo'da oo kale ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo isticmaalana ay tahay producing in la soo saaro beef for sale hilib laga ganacsado for sale la suuq geeyo sawirkan ka hooseeya qoraalka aad u jeedaan waxa aragtaa neef la kala iibsanayo oo beer dhexdiisa oo hiliba waliba neef lo ah good mixed farming ba iyaduna jira mixed farming waa maxay waa in la dhaqdo xoolihii sidoo kalena cropski dalagii la beero in same farm hal beer oo isku mid ah in the same time mararka qaar in this type of farming inta badan waxa loo yaqaano waa wixii ba isku dhex jira waa mixed waa maxay isku qasan waa maxay waa dalagii iyo waxa loo yaqaano dhaqashadii xoolaha that's waxa loo yaqaano waliba hal beer noocaas beer ayaa waxa loo yaqaanaa mixed farming sawirkan aad u jeedo waa sawir nin
tusaale ahaan waxaa aragtaan lo'dii sidoo kalena waxaa aragtaa dalagii beeraha xoolihii iyo beeristii that's waxa loo yaqaano mixed farm. Factories influencing commercial cultivation and location of crops. qodobada saameynta ku leh commercial cultivation dalaga ama miraha waxa loo yaqaan ujeedada koowaad ay tahay in loo beeray in laga ganacsado maxaa saameyn ku leh guud ahaan saddex qodob ayaa saameyn ku leh waxa loo yaqaano commercial cultivation waxayna kala yihiin climatic factor, soil factor and economic factor. Climatic factor ku guud ahaan waxa jira labo aspect oo muhiim ah kuwaas oo kala ah temperature and rainfall. tusaale ahaan temperature ku sidee saameyn ugu leeyahay commercial cultivation markastoo ay dhirku hesho temperature fiican oo diirimaada oo dhexdhexaada waa ay baxaysaa meelaha tusaale ahaan ugu yaraan hadii dalagga beertu waxa dhacda loo yaqaano bilo badan tusaale dhowr bilood oo kale ay frozen tahay oo ay baraf fadhiya tahay maxaa dhacaya balantis cannot survive dhirtaasi ma noolaanayso therefore temperature ku saameyn ayaa uu ku leeyahay commercial cultivation meeshu markay tahay meel heerkulkeedu dhexdhexaad yahay diiran waxa loo yaqaano waxa suuragal ah in halkaas cultivation fiican ama productionka wax soo saarka dhirta ama dhirtu ay noolaato oo survival of plants halka ka dhaco good waxa jira rainfall sidoo kale the total amount and distribution of rainfall per year sanadka العليسك وحوي روبك سنة لها إذا مهم وياه ديرتا محايلة وحا هلكا كإيمان أي واحد لو يقانو مركز تو دي أي ميشو هالشودير إن ميشو أي هالشو واحد لو يقانو بيو إن واحد لو يقانو ديرتا أي كبي حكرو سأدرتي لبضبا temperature iyo rainfall ku filan hadii ay dalagga helaan waa ay baxaan wax soo saarkina waa badanaya laakiin wadamada qaar ama meelaha qaar waa desert region sadarteed suuragal ma aha in dalag lagu beero suuragal ma good waxa jira qodobka labaad ee qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaano commercial cultivation waxa waaye soil factor soilku waa ciid muhiim ay u tahay dalagga meesha ay ka ciid fiican tahay ciideedu ay ka tayo fiican tahay oo soil pH-keedu aad u sareeyo waa maxay oo fertile soil waa maxay dalag waxa loo yaqaano beerihi waa ay baxayaan meesha hadii ay tahay waxa loo yaqaano less fertile maxaa dhacaya waxa loo yaqaano hoos u dhac wax soo saarka dalagga beeraha ayaa dhacay good qodobka saddexaad ee saameynta ku leh ardayo waxa loo yaqaano commercial cultivation waa economic factor tusaale waxa loo yaqaano hadii waxa loo yaqaano wadanka ama bulshadaasi waxa loo yaqaano dhaqaale ahaan ay tahay bulsho isku filan waxa dhacaysa waxa loo yaqaano in dalagga beeraha waxa loo yaqaano la suuq keeno dabadeed laga iibsado markasta oo dhimanka ama baahidu ay badato waa markasta oo supply-ga ama wax soo saarku bato laakiin ka waran marka aan leeyahay beer weyn oo iga galay waqti loo yaqaano waraab iga galay harvesting time iga galay oo waxa loo yaqaano in badan aan sugayay haddana aan laga iibsan laakiin marka aad haysato suuq sidoo kale dhaqaale ahaan dal isku filan ama bulsho isku filan wax soo saarka beeruhu aad u siyaadaya therefore economic factor ku saameyn ayaa uu ku leeyahay waxa loo yaqaano commercial cultivation guud ahaan types of commercial waxa loo yaqaano crop cultivation dalagga la beero qaybaha loo qaybiyo waxa jira tusaale noocyo badan oo dalagga tusaale ahaan waxa jira kuwa la yiraahdo cereals oo loo yaqaan galeyda tusaale ahaan waxyaalaha ma taqaan qolofta leh tusaale ahaan maxay caan ku yihiin cerealsku inta badan are grass like plants waa caws sida dhirta oo kale kor u baxa wuxuuna soo saaraa seeds iniyo ayaa soo saaraa iniyahaasi waxa cuna ama dadkii ama xayawaanaadkii maxaa ugu caansan tusaale ahaan sorgamka ugu caansan waxa loo yaqaano haruurka bariiska waxa loo yaqaano wheatka beanska digirta iyo qaar kale oo badan ayaa la yiraahdaa waxa loo yaqaano qolofley ama cereals good waxa jira dalag la yiraahdo root crops oo ah xididley waxa kamida tusaale ahaan carrotka kamida potatada kamida kasaafaha kamida basasha kamida onionka ayaa kamida good waxa jira nooc kale oo crop cultivation-ka dalagyada aynu beerano kamida waana nooca loo yaqaano vegetables-ka tusaale ahaan waxa kamida cabbage-ka kamida tomatada kamida iyo qaar kale markaynu vegetable-ka ka hadlayno waa nooca ugu degdega badan ee baxa oo dhulka ka soo baxo ama aynu beerano way waxa jira nooc kale oo loo yaqaano waxyaalahan dalagga inoo baxa kamida waana fruitka tusaale ahaan mangada iyo qaar kale oo badan oo kamida waxa jira dalag kale oo aynu beerano oo la yiraahdo industrial crops waxa weeye dalag aynu u beerano inaynu ka ganacsano maxaa kamida tusaale cudbiga oo cottonka oo kala kamida tobaakada oo kale ayaa kamida
inta badan ujeedada loo isticmaalana waxay tahay inaad waxa loo yaqaan earning money lacag ka hesho inaad lacag ka hesho good crealis waxa loo yaqaan crealis haday waxa la yiraahdaa dalagyada tusaale ahaan haruurka waxa loo yaqaan mayska oo kale waxa loo yaqaan galeyda inta badan qolofta leh qolofley ayaa la yiraahdaa inta badan waxa loo yaqaan cropiska noocan ah waxa ay ku koraan meelo qaar cimiladeedu waxa loo yaqaan specific climate condition sida darteed inta badan marka aynu ka hadlayno crealisku waxa ay kaga duwan yihiin dalagyada kale oo aan soo sheegnay waxa ay leeyihiin waxa loo yaqaan qolof ayaa ay leeyihiin laba nooc baynu ka qaadan doonaa oo la kala yiraahdo maize and sorghum hadaba maxaa maize la yiraahdaa maize af Soomaali ahaan waa galey galeydu inta badan waa creal waa qolofley taasoo dherer ahaan gaadha 1.5 meters it has very long stalk waxay leedahay ul dheer aan broad sidoo kalena ballaaran waxay leedahay long leaves caleemo balbalaaran inta badan marka uu qaangaaro wuxuu soo saaraa ubaxaasina waxa dhacda inuu axelka ama usha uu ka soo baxo dabadeed ubaxaas ayaa marka ugu dambaysa wuxuu soo saaraa crop dalag soo saara waxa loo yaqaan ininti oo kala soo saara ama mirti soo saara at the end of the flower stalk wuxuu ka soo saaraa dhamaadka usha ayaa uu ka soo saara good marka aynu ka hadlayno sawirkan oo kale waa sawir ku tusinaya maize-ka geedka maize-ka la yiraahdo galeyda ku tusinayo waxa jira growing conditions for maize xaaladaha uu ku koro muxuu ku koraa xagee ku haboon inaan ku beerno ama ka beerno galey a growing season between horta waxay ku qaadataa 150 ilaa 210 maalmood ayaan ku qaadataa inuu waxa way geeda kan guud ahaan aynu guranno sidoo kalena celceliska heerkulka uu u dhaxeeya 20 degree ilaa 25 degree ayaa ku haboon inuu ka baxo 20 ilaa 25 degree ayaa ku haboon inuu ka baxo good marka aynu ka hadlayno annual rainfall-ka celceliska roobka sanadlaha ee uu baahan yahay waa qiyaastii 620 mm ilaa 1 mm ayaa uu baahan yahay si uu u baxo sidoo kale sorghumka waxa la yiraahdaa haruurka ama badarka oo kale these plants are cultivated in warmer climate inta badan waxa laga beeraa meelaha cimiladoodu tahay dhexdhexaadka ama diirimaadka inta badan sorghum speciesku waa inta badan waxa laga isticmaalaa waa cunno kamid cunnada adduunka loogu isticmaalka badan yahay gaar ahaan wadamada loo yaqaan poor rural people dadka baadiyaha degan ee poorka ah faqriga qaaradda Asia iyo Afrika iyo qaar kamid ah America waa cunno kamid cunnada inta badan loogu isticmaalka badan yahay adduunweynaha marka laga hadlayo haruur good sawirkan waa sawir ku tusinaya haruur loona yaqaano af Englishka sorghum good muxuu ku baxaa haruurku sorghumku wuxuu u baahan yahay si uu u baxo celcelis dhan 25 degree sorghumku kuma baxo celceliska heerkulka ka yar 17 degree annual rainfall-ka wuxuu u baahan yahay si uu u baxo roob celcelis sanadkii dhan 500 mm ilaa 1 mm inta badan waa ay ka siman yihiin marka aynu ka hadlayno growing conditions-ka xaaladda koritaanka sorghumka iyo maize-ka galeyda iyo waxa loo yaqaan haruurku good intaasi waxaynu ku eg chapter-keeni saddexaad oo ahaa agriculture beeraha marka aynu beer ka hadlayno ardayo waa inaad dib u xasuusato agriculture-ku kaliya ma ahan in dalag la beero sidoo kalena waxa la xiriira agriculture-ka dhaqashada xoolaha good laba ujeedo ayaa ay noqon karaa in dalag loo beero ama xoolo loo dhaqdo subsistence in la quuto ama in laga ganacsado guud ahaan marka agriculture-ka saddex baynu u soo qaybin haddaan dib idin xasuusiyo oo kala ahaa arable farming ama crop farming mixed farming iyo animal farming intaasi waxaynu ku eg chapter-keeni saddexaad ee agriculture ka shaqee shaqada homework define agriculture qeex agriculture number 2 what are the types of agriculture waa maxay qaybaha agriculture Number 3, list tah and explain sidoo kalena qeex factories influencing commercial cultivation. qodobada saameynta ku leh commercial cultivation. Number 4, what is the difference between the following pastoral farming and dairy farming? waa maxay farqiga u dhaxeeya? mal farqu bayn su'aasha ugu dambeysay ee shanaad with relevant of example ardayo adigoo tusaale raacinaya what is the cereal maxaa la yiraahdaa cereals tusaale raaci intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa chapter-keeni saddexaad ee agriculture intan xiisadan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa
نبادينو. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.